السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada taariikhda Soomaaliya oo kooban oo aan uga hadli doono halkan barnaamijkeeni koobaad waxa uu noqon doonaa mid aan uga hadalna taariikhda Soomaaliya insha Allah. barnaamijyo noocan ah maalin walba waan soo gelin doonaa channelkeena. kusoo dhawaada barnaamijkeena. Soomaaliya waa dal ku yaala geeska Afrika wuxuuna ku fadhiyaa dhul baaxadiisu dhan tahay 635,541 kiiloomitir oo square. waxa uu xuduud la wadaagaa gacanka cadmeed oo ka xigta waqooyiga, Djibouti oo ka xigta waqooyi galbeed, Ethiopia oo ka xigta dhanka galbeed, Kenya oo ka xigta dhanka koonfureed, iyo badda Hindiya oo ka xigta dhanka bari. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu xeebta dheer caalamka. waa wadanka ugu xeebta dheer qaaradda Afrika. dhirirka xeebta Soomaaliya waa 3,333 kiiloomitir. tirada dadka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 12 milyan oo qof. 60% Soomaalidu waa dad reer baadiye ah, 20% waa dad reer magaal ah, 15% waa dad beeraley ah, iyo 5% oo ah dad kalluumaysato ah. qarnigii 19aad 1875 waxa ay ahayd markii ugu horeysay ee gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Faransiiska markii ay soo caga dhigteen geyiga Soomaaliyeed. Ingiriiska oo maamulayay Cadan Yaman wuxuu go'aansaday in uu lug ku yeesho dhinaca kale ee gacanka cadmeed Barbara. Ingiriisku waxa uu ku fekerayay in si uu u ilaashado marinkiisa ka imaanaya India, maraakiibtiisa ka imaanaysa India ee maraysa badda cas ay lagama maarmaan tahay inuu hanto Berbera. Faransiisku wuxuu isna ku fekerayay in halka ugu dhow ee uu Ingiriiska ka carqaladeyn karo ay tahay Djibouti, deegaan ku yaasha. Ingiriiska markaas wuxuu ka waday bariga Afrika dhisida qatareen oo isku xidha wadamada bariga Afrika. Talyaanigana wuxuu markaas la wareegay gacan ku haynta koonfurta Soomaaliya oo aan markaas ahayn dhul leh ahmiyad la mid ah kan dhinaca waqooyi ee Soomaaliya. maadaama Ingiriiska aanu aad u danaynayn koonfurta Soomaaliya, Talyaaniga waxa ay u noqotay tani fursad uu ku doodo inuu ka mid yahay wadamada reer Yurub ee wax ka gumaysta qaaradda Afrika. 1900 boqorkii Ethiopia Menelik waxa uu qabsaday dhulka Soomaali galbeed. 1899 Sayid Maxamed Cabdulle Xasan wuxuu dagaal kala hor yimid gumaystihii Ingiriiska. wuxuu sayidku dagaal waday muddo 21 sano ah. ugu dambeyn Ingiriiska waxa ay duqeyn xagga hawada ah ku bilaabeen xurumihii sayidka. tani waxa ay keentay inuu hakad galo halgankii ummadda Soomaaliyeed ay kula jirtay gumaystihii dalka ku sugnaa. 1941 ilaa iyo 1949 Ingiriisku waxa uu maamulayay gabi ahaanba Soomaaliya maadaama ay xulufadiisa ku guuleysatay dagaalkii labaad ee adduunka. 1948 xulufadii dagaalkii labaad ee adduunka ku guuleysatay waxay ugu deeqeen Ethiopia in ay hanato dhulka Soomaali galbeed. 1949 qaramada midoobay waxa ay 10 sano ee soo socota Soomaaliya hoos geysay xukuumadda Talyaaniga. SYL tan aad ayay uga soo horjeesatay xilligaas, waxa ayna muujisay sida dadka Soomaaliyeed diyaar ugu yihiin in ay xorriyad helaan. 1960 June 26 Soomaaliya waqooyi waxa ay ka xoroobeen Ingiriiska. isla sanadkaas 1 Julaayo 1960 Soomaalida koonfureed waxa ay heleen madax banaanidii Talyaaniga. isla markaasna dalka waxa uu ku midoobay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo lagu dhawaaqay fadhiga koowaad ee baarlamaan xor ah oo uu shir gudoomiyay Mudane Xaaji Bashiir Ismaaciil. madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya waxa uu noqday Aadan Cabdulle Cusmaan. ra'iisul wasaarihiisana waxa uu noqday Cabdirashiid Cali Sharma'rke oo isagana noqday markii dambe madaxweynaha Soomaaliya. 1967 ilaa iyo 69 Soomaaliya waxaa lagu hirgeliyay dastuurkii ugu horeeyay ee dalka
waxa ayna samayntiisu soo bilaabatay 1960kii ilaa iyo 64kii. Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa dhex maray dagaal gaaban, isla waqtigaasna Itoobiya iyo Kenya waxa ay wada saxiixdeen heshiis dhinaca militariga ah oo Soomaaliya ka dhan ah. Xilligan Soomaaliya waxa ay u leexatay in ay kaalmo militari ah weydiisato Midoogii Soviet ama Soviet Union. Mareykankuna waxa uu isla xilligan kaalmo dhaqaale iyo mid militariba siinayay Itoobiya. 1967kii waxaa madaxweyne noqday Cabdirashiid Cali Sharma'rke, ra'iisul wasaarihiisuna waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, Allah u wada naxariiste.